shiray galabta yeesheen qaar ka mid ah odayaasha gardhaqameedka maamulka degmada Garbaharey iyo siyaasiyiin sidoo kalena ay qayb ka ahayd xildhibaanad Faadumo Faarax oo ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya deegaan doorashadeeduna tahay degmada Garbaharey waxa uu la jeedkiisu daarnaa dhul u lahaa Allah u naxariistee ugaas Cali Aadan ugaas oo si sharci darro ah maxkamadda gobolka Banaadir ugu xukuntay qof kale ayaa waxa ay baaq u direen waxgaradka beesha Abgaal iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay heebahaan isxigaan ninka dhulka ay maxkamaddu u xukuntay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna kusimaha gudoomiyaha degmada ayaa ugu horeyn kulanka daahfuray saad u jeedaan maanta waxa meeshan ma aragtay shirkan waxa way fadhiyo xildhibaanad Faadumo Faarax Aadan oo ah xildhibaanad heer qaran ah oo waxa way hoob 123 ku fadhido oo deegaan doorashadeedu uu yahay magaalada Garbaharey maanta waxaan rabnaa inaan baaqan iyo shirkan aan ma aragtay uga soo saarno qodobo waxa aan diidnay oo waxa way diidanahay waxa way go'aan sharci darro ah oo ay waxa way maxkamadda gobolka Banaadir ay ma aragtay ku xukmisay dhul intaan oo ay xildhibaanada ugu horeysay ehliyadii iyo casabadii nabadoonadii iyo cuqaashi ay leeyihiin dhulkaas oo ku yaal magaalada Muqdisho degmada Wadajir airportka magaalada Muqdisho ama Xalane dhulkaas waxa way si sharci darro ah oo ka baxsan nidaamka cadaaladda iyo maxkamadda ka baxsan ayuu u dhacay mana ku qanacsanin mana aqbalayno raallina kama lihin waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dhammaan xildhibaanada federaalka ah waliba si qaas ah xildhibaanada daarood golaha wasiirada kuwa ku matalo ra'iisul wasaaraha dalka arintan inay ka hadlaan oo ka caanay diidaan dhulka asaga ah oo Cali ugaas leeyahay waa dhul Soomaali iyo waxa way ummadda dhan bay ogtahay waa dhul sharci ah oo sabar loogooyinkiisa leh oo marqaatiyaashii deegaankii iyo ma aragtay la og yahay maxkamaddu waxa way waxa la rabaa inay noqoto cadaaladu mid loo siman yahay ma ahan mid reer gooniya iyo dad gooniya ay ma aragtay ay gudoonkeeda ama ma aragtay qanaacadeeda ay gacanta ku hayaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii ka soo qayb gashay kulanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin beel dhici karto ama u dowladeyn karto waxaana hadalladoodii ka mid ahaa salaan kadib Soomaalidu waa mahmaahdo waxa la hadal mid haduu yahay laba lagama dhigo shirkanaga kan wuxuu ku saabsan yahay galabtay baaq weeye baaq nabadeed weeye baaq waxa weeye aan u direyna weeye reersade meel ay joogaanba ogeysiin weeye waa baaq aan u direyna madaxweynaha waa baaq aan u direyna jifadiisa ugaas haday leeyihiin waasyadooda nabadoonadooda madaxweynaha federaalka Soomaaliya aan u direyna weeye annagoo reersada baaq aan u direyna weeye xildhibaanada daarood ugaasyaha daarood nabadoonada daarood يعني باقاس هلا dhageysto hal tixgeliyo hal qaato yaan la fududeysanin waxa laga hadlahayo oo baaqa ka dirina waxa weey dhulkaas xoog lagu haysto lagu dhacay oo reer sida ay leeyihiin oo Cali Aadan ugaas u leeyahay oo sharcigiisii iyo sabarloogiisii iyo dokumentigiisa gacanta lagu hayo Soomaaliya raas casir raas Kambooni bay degan tahay meel walba nabad baa ka jirta in la isdhaco oo la isxoogo Soomaaliya xeeruma ah ma mudnin mana kala mudnin sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweyne jaalle madaxweyne adiga iyo jifadaada iswarsada arinta ka tashada ugaasyadu ha ka tashadeen nabadoonadu ha ka tashadeen xildhibaanadu ha ka tashadeen dhulkaas Cali Aadan ugaas Cabdille uu leeyahay oo xildhibaan Faadumo Faarax Aadan oo xildhibaanka reer Jubbaland lagu dhibaateeyay ama dawladda federaalka lagu dhibaateeyay oo gacanta loogu geysay dhulkaas ma bixinayno mana bixin doono baaqaas waxaan codsanayaa oo shirkan galabta isku saabsan yahay
in la tixgeliyo oo la qiimeeyo. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha sharafta badan ee Soomaaliya golihiisa xildhibaanada oo ugu horeeyo walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe saddexdiisa ku xigeen dhammaan xildhibaanada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha golaha nabadgelyada qaranka dhammaan waan salaamayaa salaanka bacdi iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba inta mansable iyo in kasta uu yahayba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan halkan ka dirayaa baaq gaaban insha Allah baaqaas oo ku saabsan dhul ku yaala Xamar gaar ahaan degmada Wadajir ee Raboorka agtiisa oo uu iska leeyahay marxuum Cali Ugaas Aadan Ugaas Cabdille Ugaas Faarax Ugaas Xali Xaabuun uu iska leeyahay oo Muqdisho ku yaala dhulkaas oo qaranka qarankiisa lagu boobay shaati qaran ayaan baaq ka direynaa in la joojiyo dawladda arinta ayada ay dib ugu noqoto ay dhuuxdo dukumiintiyada sharciga ah ee sabarloogadii Soomaaliya oo la gooyay 1983 ku cad ilaa 91diina laga qaadayay canshuur heer qaran ah bil walba sanad walba laga qaadayay dukumiintiyadeedii la hayo sida u sharciyeysan ayaa qalinkii dawladeed lagu boobayaa si sharci darro ah waxaa laga qaadayaa shakhsiyaad iska lahaa waxaana la siinayaa shakhsiyaad Soomaaliyeed oo kale cadaaladna ma aha haddii ay istiraatiiji dawladeed ay tahay oo dawladdu ay istiraatiiji ay ka leedahay iyadu ku aadan howlaheeda qaran oo dan guud ah isagoo shakhsiga iska lena lagala xaajoonayo ayaan ogolnahay in sida ayada loo qaado laakiin in shakhsina laga qaado shakhsina jeclaysi loo siiyo arinta ayada ma aqbalayno haddii alla idmo insha Allah taala arinta ayada dawladda dib ha u fiiriso ha ka laabato ninka maxkamadda ha ka laabto cadaalad rusuubiyay insha Allah taala xilka isagaana ma mudnaan leenahay in uu sii hayo maxaa yeelay waa shakhsi aan ummadda u dhaxayn karin oo isagoo dukumiintiyadii arkaya ka leexday oo nin jeclaysi iyo laaluushii qaatay weeyaan xilka isagaana ma astahlaan leen insha Allah taala waa laga qaadi doonaa bidnillaahi kariim goor ay noqotaaba inta ka bacdi waxaan baaqaygan ku soo koobayaa odayaasha dhaqanka ee Abgaal walaalaheen ah ugaaska Abgaal oo halkan ka salaamayo walaalkeen iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed iyo ugaasyada Soomaaliyeed dhulka isaga ah waa dhul ugaas waa dhul nabadoon shakhsiga isaga ah iyo dhulka isaga ah Soomaali isboobkii iyo hantidii Soomaaliya oo la boobayay ayaa xitaa ka leexday oo qaadan waayay lahaanshihiisa awgeed maanta in qarankii Soomaaliyeed uu ku boobo qalin iyo shaati dawladeed lagu boobaana ma aqbalayno arinta ayada waxaan horay loo arag qaran dadkiisa dhacahay horay looma arag waxaan baaqa u diraynaa ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada sharafka badan wixii wax garanayo islaamka Soomaali ah oo garanayo sharciga Soomaaliya u yaalo in la isku xad qaran inuusan dad ku xadgudbin dhul ummado leedahay inuusan qaran ku xadgudbin waxaan baaq u dirahayaa qabiilka reer Abgaal ugaasyadooda nabadoonadooda sabadoonadooda ugaaskooda iyo waxgaradkooda haddaanu reegadanahay annaga iyo adinka Abgaala xeer xun mali waxaan idin sheegayaa annaga hadda koor annaga nirasada in xamar lagu dulno Abgaala dilay inay yiraahdeen faataxadan in maraynaa noo daayay raadiya adinka hadda laftiino faataxadii ninkii la dilay baan ooga tagnay isweydiiya faataxadii dadku u mari jirteen xageed geyseen way isweydiiya ilaahay weynaaba magaala madaxda Soomaaliya ka dhigay ha garab marina taas waa midaas Abgaal taas aan leeyahay oo xeersanka aan leenahay ha baabi'inina dad islaam baan nahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu al islaamu man salima al muslimuun min lisaanihi wa yadihi islaam waxa la yiraahdaa ninka afkiisa iyo gacantiisa laga nabad galo
afka waxbaa lagu xantaa waxbaa lagu caayaa waxbaa lagu aflagaadeeyaa gacantana waxbaa lagu dhacaa waxbaa lagu dilaa sidaas awgeed haddii laga waayo intaas ayadaa qofka meeshaas waxaa ka soo baxaya inuusan islaam ahayn waa dhac waa gacanti wax lagu dhacahayay waxna lagu dilahayay dhulkaas waa dhac maxkamadda xukuntayna waxaan leenahay ha ka noqoto waxaan leeyahay xildhibaanada siilay daarood xildhibaanada Soomaali khaas ahaan kuwa daarood dhulkaas oo dacwadiis wax badan socotay oo sharci baa la geelay waxa la xukumayna ma jiraan sharci dhulkaas lama waafajin cadeyntiisi iyo sharcigiisaba lama keenin waa dhul boob ah dhulkaas xildhibaanada hadda halkan fariido joogtay xildhibaan Faadumo ayaa lagu waxyeelay oo lagu dilay waa la og yahay dawladda federaalka dhammaan waa wada ogtay qof aan ogeyn ma leh waxaan khaas ahaan ula sii hadlahayaa beesha abgaal ugaaskeeda nabadoonadeeda iyo waxgaradkeeda waxaan leenahay Soomaali baan nahay waa wada degannahay hantida meel walba ay taallaa isma dhici karno annagu daarood baan nahay waxaan nahay Marixaan beesha sida waxaan leeyahay beesha dhulka asaga ma dhacmahay nin baa iskale waa la yaqaan waa dhul sharci leh dhul la gooyay oo sharci leh way oo nin iska leeyahay waayahan baan horta meeshan joogno Garbaarey way dhibaato dhagahanaga baryahan ba ku soo dhadhacaysay oo u dul qaadan weynay baan isu kaana keenay galabta waxaan u baaqaynaa baaqanagu maxaan ku raadaay ku jeedaa waa dawladda ma ahan dadweynaha ma aha waxa weeye anaga dad loo dawladeyn kara ma nihin hawiye daarood markaan nahay anaga daarood ah oo waliba hadana reesada wax aan maxaan ku raadaay waligeena soo marin weeye waxa hadda maanta soo yeerahay dhul konton sano cidi lahayd maxaan ku raadaay ninkii sabaroogiisa lahaa uu dhintay caruurtiisa aqoontayda ay sabarooga haystaan in Xasan Sheekh Maxamuud shaatigiisa maanta cidiisa intay noogu dawladayso ay dhaaraan dhulkan cidaan ma astaahilaan oo meel fiican buu ku yaalaa baan hadda anagu aragnaa laakiin ma dhacayso waxaan marnaba dhacayni waxa weeye hal qof haduuna daarood ka harin ama Marixaan uusan ka harin dhulka Cali Aadan ugaas oo la yaqaanay oo Soomaali oo dhan ay taqaanay in maanta Xasan Sheekh Maxamuud dawlad yahay abgaal hadda cadal la dhaho wax shaqeynaya ma aan leenahay arintaas baan anaga horta galabta meeshan isugu nimid oo hadalkeeda inaan maxaan ku raadaa isku soo qaadnay waxaan kala baaq u dirahayaa kuwa ama daaroodka ama Marixaanka oo xildhibaanada iyo wasiirada meesha jooga haddii aadnan meesha waxba ka ahayn marka Xasan Sheekh Maxamuud dooranayeen waxba iska dhigayseen oodna dadka aqoonta hoostiina lagu dhaxay aadna waxba ka tari karin nooca deeyo waxa tiraadaan anaga meesha la haystaanahay anaga gargaar u baahan oo in maxaan ku raadaayo taxamar meel dadka lagu baarto anagu maanan moodayn caasimadda dadka u dhaxaysay baan ku ogeyn hadda se waxay u egtaa diiba guriga reer Cali Aadan ugaas leeyahay aminkan dad baale oo la kala jaranhayo meel dadka lagu dhacay u egto baaqanagu galabta wuxuu ku saabsan yahay wixii laga hadli lahaa waan ka hadalay wuxuu ku saabsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud buu ku saabsan yahay mudana madaxweyne anigoo ku hadlahaya gabdhaha beesha afka sade gobolka Gado khaasatan degmada Garbaharey anoo ku hadlahaya afkeeda gabdhaha beesha sade waxaan codsi baaq u diraynaa inaad dib u eegto dhulkaas Cali Aadan ugaas oo intaas oo sano u lahaa 8 sanana qarankii hore canshuurahayay oo sabarloogiisi iyo cadeymihiisi la haysto in quuri waa loo qaato laguna qaato qalinkaaga iyo shaatigaaga ma yeelayno raalina kama nihin waxaan kaloo baaq u dirahayaa xildhibaanada beesha sade matala kuwa daarood kuwa Soomaaliyeed intii aqli u saaxiiba culumaa diinka kaaba qabiilada abgaal nabadoonada abgaal ugaasyada abgaal waxaan baaq u dirahayaa Soomaali ma dhici karto markii Ilaahay dadka dhulka uu makaniyay Muqdisho waa la wada leeyahay waana la wada degan yahay waxaan u aragnaa kulay kuwii dhisnaabaan ku mabnay oo qaadanay kuwa banaana aan ku darsanno waxaan xeerinaynaa Soomaalinimo waxaan xeerinaynaa muslimnimo waxaan xeerinaynaa wada dhalasho waxaan xeerinaynaa dhiigga Soomaaliyeed
mudana madaxweyne waxba ma xeerinaysid shaatigaaga baa nalagu dhacayaa lagaba yaabay inaan shaatigaaga nalagu dhacayn adigu baad saxiixday ood raalli ka tahay in la qaato booskaas waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto dal iyo dibad dhulka agoontu leedahay oo ugaasyadu leeyihiin oo boqoradu leeyihiin oo xildhibaankii annaga nagu matalay meesha oo ayadu Faadumo Faarax aadan ay budiga u ahayd in loo gacan qaado godobtaas iyo gafkaasna beesha abgaal bay u taala iyo madaxweynaha ku matalaya ummadda Soomaaliyeed una dhaartay ugu dambeyn xildhibaan Faadumo Faarax Faadumo Nayl oo kamid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya oo howlo shaqo u soo gaartay degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa si kulul uga hadashay sheegtayna inay laftirkeedu ku sigatay booskaas in lagu dilo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanka bacdi anigu waa xildhibaan Faadumo Faarax aadan waxaan joogaa oo aan ku suganahay gobolka Gedo Garbaharey 3 bari 4 bari baan ku suganahay 4taas bari oo aan ku sugnaa maalinta imid maalintii ku xigtay waxa dhacay wax aanan dunida ka dhicin oo aan sharci ahayn oo indhalaan ah oo aan si sax ah loo hogaamin oo aan loo cadaalad samaynin baa ka dhacay dhul maxaa la yiraahdaa uu lahaa Cali Aadan Ugaas Allah u naxariistay agoontiisu oo dhib badan ka jiray oo dagaal badan ka dhacay oo sida hadda odayaashu sheegayaan iyo dadka dhan ay og yihiin oo caam tahay in aniga la igu dhex dilay wixii igu dilayna ay ahaayeen ciidamada qaranka oo booliska oo loogu talagalay inay amniga ilaaliyaan ayagoo u shaqeynayo kambaniyo meesha ku jiray oo marka hal la joojiyo warqad sharci oo maxkamad oo soo baxday oo hal lagu joojiyo la lahaa oo aan meesha soo istaagnay markii bidhaantayda la arko la ii gartay inaan ahay qofka dhulka ka doodayo aniga odayaal dhaqan ah oo isla socdo dagaal nagula bilaabay anigana barti la iguna daqray odayaashii lagu laayay aniga oo qayladaan aan madaxtooyo tagay madaxweynaha ay gaartay ra'iisul wasaaraha gaartay wasiirka amniga ay gaartay markiina amar laga bixiyay la joojiyay dhulkaas oo sifo sharci ah oo ku leeyihiin agoontay Cali Aadan Ugaas qofka wixii mulkidiisa ah sifo sharci ah uu leeyahay waxa mulkidiisa uu ku waayi karaa inuu ama iska gado ama maxaa la yiraahdaa dhulkaas asagu ka tago bixiyo oo uu sadaqo u bixiyo intana midna ma ahan dhulka mulkidiisi dukumiintigiisi oo dhan halkaas ku jira asagoon hal xabba ka maqneen ilaa maalintii uu qofka hantidiisa ku soo wareegtay 83 ilaa up to now dukumiintigiisi oo hadda oo dhulkaasi uu ku yaalo aeroboorka agtiisa xalane container ay maxaa la yiraahdaa amisoomto meel dhigtay oo aan xaalkiisu ku oolin dukumiintigiisa qoraalka aysan ku oolin markii amisoomta loo tago in Cali Aadan Ugaas uu dhulkaas leeyahay ay qirahayaan wasaaradda duulistii hawada wasiiradda duulistii hawada ay waraaq markaan dukumiintiga u geynay ay noo goysay warqad ogolaasho inaan dhisano ah maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ay waraaq soo goysay amisom ogolaasho bixisay ayadoo dhulkaasi uu halka marahayo ay ku habsadeen xildhibaano ila mid ah oo dawladda federaalka ka mid ah oo maxaa la yiraahdaa inta sharci ee anigu sharciga dastuurka oo aan xildhibaanka ku ah inay dhaheen dawladana soo siisay ayagoo cagaf ku beegay meesha aan isku qabsanay dawladda qayladii markay gaartayna la xiray la yiri ha lagu kala baxo qufulkeeda loo dhiibay nin markii warqadii dhulka joojinta maxkamadda la yiri jooji oo boolis ah uu diiday oo sharciga daba maray oo haddana warqad kale maxkamaddu u qorto inuu hor imaado maxkamaddu haddana diiday oo baal maray markii saddexaad ay maxkamaddu ay waaran u jartay asagoo wali waarankii aan ka jawaabin oo aan tagin maxkamadda uu gudoomiye maxaa la yiraahdaa Saalax uu u qoray cafin inuu maxaa la yiraahdaa uusan dambi lahayn
dowladuna ay maaragtay sifahaas qaldan ayna weli ka jawaabin haddana isla saalax dowladdu dhulkii la xayiray oo sida sharciga lagu xayiray oo ra'iisul wasaare ogaa oo madaxweyne ogaa oo dilka iyo dhibaatada ka dhacday ayadoona guddi loo dirin garsoor iyo cadaalad ah ayada oo maxaa la yiraahdaa maxkamad labada dhinac midna gardhageysi loo sameyn in la soo saaray warqad kale oo uu saalax soo saaray in dhalaan oo sharciga baalmarsan oo uu soo saaray inuu yiraahdo dhulkaas waa fasaxan yahay dhulkii anoo halkan joogo oo shaqo qaran u joogo oo kormeer deegaan doorashadeeda u joogo in maxaa la yiraahdaa agoontii lahaydna iridda lagu soo garaaco laga soo celiyay la furay sifo sharci darro ah warqadda uu soo saaray saalaxna wax sharci ah oo ku fadhida ma leh sida la wada ogyahay shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sanadkii u dambeeyay taagnaa miidiyaha iyagoo raadinaya cadaalad balse waxaad moodaa in shacabka magaalada muqdisho si ku talagal ah loo boobayo Warsame Xaaji Faarax warbaahinta Jubbooyinka magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo.